بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن دمانتين بدا وديال مeel kasto aad joogtaan halkani waa wacdaraha adduunka barta aynu YouTube ku leedahay ku soo dhawaada warbixin cusub warbixinta ayaa maanta waxa ay noqon doontaa mid aad u xasaasi ah taas oo aynu mar walba idin soo gudbi doono aynu idin dhaca sheekada haatan aynu gacanta ku hayo maxbuus ayaa waxa uu cadaalad darro ku xukunaa muddo 30 sano ee ka hor oo isla markaana haatan xabsigaasi laga sii dayay aan idin dhaca sheekada Jayri Themos oo hadda 62 jir ah ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Mareykanka oo uu ku qaatay muddo 30 sano ah kadib markii la ogaaday in uusan gelin dambi lagu xukumay sanadkii 1999 ayaa lagu eedeeyay in uu ku xadgudbay haweeney isaga oo xabsi loo taxaabay isla markaana ay xabsiga dhigeen boolisku tan iyo xilligaas Jayri ayaa dadaal ugu jiray sidii uu isaga difaaci lahaa dambiga dusha laga saaray ee uusan gelin isla markaana uu ku mutaystay xabsigan dheer waxa caawiyay oo kaalmeeyay ururo u dooda xuquuqda dadka oo ka dhisan dhowr magaalo oo ku yaala dalka Mareykanka haddii uu boolisku sameyn lahaa baaritaan dhab ah ma dhici lahayn in la xiro Themos ayuu yiri qof ka mid ah dadka u doodayay dacwadda maxbuuskani booliska ayaana soo bandhigin cadeymo dhameystiran markii 50 sano oo xarig ah lagu xukumay Themos muddo haatan laga joogo 30 sano go'aanka maxkamadda kadib Themos ayaa faalo dhiibtay kadib markii dib uu u helay xorriyadiisa isagoo oo yiri aad baan ugu faraxsanahay waayo waxaan ku laabanayaa gurigayga iyo waliba qoyskayga Themos ayaana waxa uu noqday mid aad u faraxsan maadaama xabsi uu ku jiray muddo 30 sano ah waana wax aad iyo aad u dhibaato badan halkaas ayaan ku soo koobiyaa warbixintayda haddii aad ka heshay warbixintani subscribe like share iyo comment ma